qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta si iskooda isku xilqaamay una istaagay ololaha nadaafadeed ee degmada si kor looga qaado bilicda magaalada ayaa meelo badan oo qashinka daadsanaa gabi ahaanba laga nadiifiyay qashin ururintan ayaa laga bilaabay meelaha qashinka uu ku badan yahay si loo ilaaliyo bilicda magaalada hawsha nadaafadeed ayaa imaanaysa xilli laga cabsi qabo caabuqa corona dhalinyaradan oo si iskooda isu xilqaamay ayaa sheegay in aanay haysan agab ku filan waxayna dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha quseeya howlaha nadaafadeed ka codsaday inay ka caawiyaan dhammaan agabka ay u baahan yihiin haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi inta oo macnaha oo daafeedka nool oo ku maqan tali dibad meel is roogtaan geega may howlo ma qabanay nadaafada degmada Walaweyn dhaxdiye gudaha macnaha meeloogi oo nadaafad baahan kulay nadaafada qabani oo hoogi ma dhax koran laakiin walaa ku qaban geega bilawni kulay si wadaan intii hoogan dad macnaha oo kulay dad kasto nin kasto hoogan iyo si silqaanay beesadan may dartay intii geedo soo suubsano oo dhalinyaro ahaan isku aruurini haddana may fadaanay oo codsino in macnaha nini kaabo oo nisiyo gaadiid baawur caadi ka qaadno iyo ma baahna gaari gacmad oo la ka qaado oo dadkii dibadda jiro iyo dadkii intii wal awoodo kulay iyana arimaadni kaabaan in magaalada geegisi soo kanay qof walba ani awood ni taro qashankaasi magaalada ku baabi'i laayni waysin sheegay in degmada Walaweyn dhalinyarada ay roogaan inoo macna nadaafada ay ku qayb galaan nadaafadu waa iimaanka barkiis anagoo ah dhalinyarada degmada Walaweyn saaka aan ku soo kalahanay nadaafadaas macna qaybta kamid ah waxaan jecelnahay in garab loogu siiyo maadaama ay tahay aniga xoogeeni waa fi sabiilillaahi laakiin waxaan rabnaa qalabkii aan ku shaqeyn lahayn ayaan u baahanahay in loo taakuleeyo dadka walaalaheen naga roon degmada Walaweyn siib ganacsatada degmada Walaweyn waxaan sheegaynaa nadaafadu iimaanka barkeeda waaye waa in ilmaha dhalinyarada lagu baraarujiyaa nadaafadaas aad ay u fiican tahay maan dareenkeen aad ay u kacsan yahay waxaan ka codsanaynaa wixii macna yani garab ayaan uga baahanahay kaalmaad xoog leh ayaan uga baahanahay inay nagu caabiyaan qalabkii aan ku shaqeyn lahayn ma haysano laakiin aniga xoogeena farkeetooyin aniga aan soo gadan ayaan ku shaqeynaa xoogeena fi sabiilillah qalabkii aan ku shaqeyn lahayn ayaa naga maqan inay namaal geliyaan qalabkii ay noo soo gadan ayaan ka codsanaynaa waxaan fiirsan weynaa wasaqdii foolxumadii bilicdii magaaladii oo maqan wixii dhamaay waxaan soo markaas diinteena ayna farayso an-nadaafatu nisful iimaan nadaafadu waa iimaanka barkiisa marka diinteena ayna farayso inaan u dhaqaaqno iskeena aan isku abaabulno aan wixii karaankeena ama aan qaban karno inaan qabano ayaan maanta u howlgalnay marka waxaan kale ogeysiinayaa bulshada reer Walaweyn ama maamul ha ahaato ama ha ahaato ganacsi ama ha ahaato qurbo joog ma dhahayno qof gooni ah oo xusameeyna hebel adig ku dhimayna waad aragtaa magaalada nadaafada ka socoto bilicdeeda magaalada awrwaay wasaqdeeda maadaama cudurro badan iyo balaayo hadeer la sheegay oo nadaafadana ay muhiim tahay waxaan codsanaynaa qof waliba qof kastaba wixii uu kari karo inuu ku qabto magaaladaas oo ka qabto gooni oo awoodiisa oo nagu kaalmeeyo umadaasna oo ugu kaalmeeyo biriyo qiyaamana ay hortiisa jiraan magaaladeena bilicdeena sharafteena nidaamkeena cid uma maqno ceel uma qadmaayo magaalada haddaan annaga aan u istaagin qof kale inta ka yimid meel kale noo istaagayo ama shaqo noo qabanayo ma jirto daafad meel walba ay hoogaan kii dalka hoog kii dibid hoog aragoo haytaan dadkan qalabkii wadadan qalab dhameystiran ma qalab shoo walyaabo badan ku maqan geedo wadahanka sulinyan hata ma gaariyaal oo qashanka la kaago leen baahan Michael leen baahan ya galoofiski gacmo la galaday ki sanka la kiriday Michael leen baahan ya baawar naftir shay qashankan oo birshay meel badan ugu manager oo baawar la ka qaado banaanka la jeey baawrtiina malhaayo marka ma dhahlahay reer daafad meel walba jooga hoogan inaa ku soo dhab gaadaan si nadaafada degmada lin ku shaqeeyay عبد الغني محمد حسن Walaweyn